Kenya una waramayay TV-ga Hong Cable ayaa mar aynu wax ka weydiinay caqabadaha ilaa iyo hadda hortaagan inay dib u bilowdaan wadahadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland ayaa wasiirku waxa uu sheegay in Somaliland ay diyaar u tahay wadahadaladaasi in la sii wado laakiin waxa uu tilmaamay in dhinaca Soomaaliya uu culays ka jiro waa runta weeye wadahadal waxaanu bilownay 2012 laakiin labadii sanadood u dambeeyay xakad ayaa ku yimi inta badan ka yimi xagga Soomaaliya anagu hadaan Somaliland nahay madaxweynaha dhowr jeer ku celceliyay munaasabado badan oo kaga hadlay diyaar baanu nahay wadahadaladii in dib loo bilaabo laga amba qaado go'aan laga gaaro arrimaha masiiriga laga wada hadlo laakiin xagga Soomaaliya ayaa arrinkaas wali ka gaabinaya inkastoo runtii farmaajo dhowr jeer la weydiiyay wili soo diyaar baanu ahay haddana hadalka mooyaane wali wax bilowa wali ma jiraan wasiirku waxa uu rajo ka muujiyay in ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom oo qayb ka qaato dib u bilaabashada wada hadalka labada dhinac laakiin waa rajaynaynaa wadanka ergeyga gaarka la soo magacaabay ee bedelay Michael Keating kii hore ka xilay Nicholas Haysom marka waxaan rajaynaynaa insha Allah arrinka inuu dib u dirgeliyo oo wax ka dhaqan حسن شوق عمر هون كيبل TV نيروبي